waxyaabaha lameeyo salaada ka tegitaankeeda ayay u arki jireen inay gaalnimo tahay quraankuna meeluu ku ishaaray salaadoo laga tago inay gaalnimo tahay sidaas daraadeed baa sida raajixa waxa weeye ruuxa salaada ka tegay islaam ah islaamna lagu tirin maayo hadduu dhintana salaadul janaaza lagu tukan maayo masaajid ayaan lagu soo lugoynin intuu caafimaad qabay oo uu noolaabo ilaahay masaajidiisii garan waayey hal maalinna uusan u sujuudin allihii abuurtay markaasaa markuu baktiyey baa inta baktigiisii lasoo qaadaa masaajidka lala soo aadaya waa in meeshii kale la geynayo la geeyo laakiin masaajid la keeni maayo salaatu janaazana lagu tukan maayo qubuuraha muslimiintana lagu aasi maayo qubuuraha kaniisadaha lagu aasaya ama meel bannaan haddii la heli karayo meel bannaan baa la iskaga aasaya laakiin qubuurta muslimiinta lagu dari maayo hadduu dhinto lamana dhaxlo isaguna wax dhaxli maayo laanna waa murtad gaalnimoo kalaa loola dhaqmaya gabadha muslimadda ee salaada tukato ma qabi karo xadhigna isuma hayo bal warkaas fiican u dhegeysta qur-aanka sida uu tilmaamayo waa sida axaadiista nabigana sal lla alay wasalam sida ku cad waa sida taariku salaadku inuu gaal yahay rasuulkana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi diinta in yar baa looga tegi doonaa waxa ugu dambeeya oo diintiina ka mida ood ka tagtaanna waa salaada buu nabigu sal lla alay wasalam ruuxu mar hadduu salaadii ka tegey wax diinoo damboo ku laaban ma jirto stagekii ugu dambeeyey ayuu ka dhaqaaqay rag ha ahaado dumar ahaa sidaas daraaddeed baa laga maarmaan ah in la ogaado ruuxii ilaahay wax ka doonayo wax kalood ka tagtaba salaadda ha ka tegin khalad kalood gashaba khaladka aada galaysaa yuusan salaada noqonin ka tegitaankeeda maxaa yeelay inta kaleo dhan rajaad leedahay inta kaleo dhan rajaad leedahay xataa haddaad soomka ka tagta rajaad leedahay laakiin haddaad salaada ka tagto adoon salaad tukanaynina aada dhimato rajo ma lihid adiga iyo fircoon iyo qaaruun iyo haamaan iyo wax alla wixii jin ahaa iyo gaal ahaa isku meel baa laydin keenaya sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada marka laysu keeno addoommada laysu keeno nebiga waxaa la odhanaya sal alla alay wasalam kac ummadaada soo madha la odhanaya soo kaxaysa ummadaada dadkan ka soo dhexsaar markaasaa waxaa la nebi ilaahay oo seed ku garanaysaa ummadaada intaasoo khalaa aadam intuu dhalay maalinka ilaahay aadam uu abuuray ilaa adduunku intuu ka dhammaanayo intuu aadan dhalay oo mid cas mid madow mid maariina kulli isku dhex jira seed ummadaada ku garan baa nebi allow markaasaa wuxuu nebigu sal alay slam bal ka warran fardo iyagoo dhan wada madow ama wada cad iyo fardo qoobabka keliyeeta astaan ku leh lugaha keliya astaan ku leh iyo wejiga hadday isaga kaa darmadaan soo kale garan mayse ha ummadaydu wuxuu uhi nebigu sal alay wasalam meelihii ay ka weyse qaadan jireen ayaa iftiimaya sidaasaana ku garan doonaa nebigu sal alay wasalam aan su-aal wayaan weydiiye ninka aan weligiina weysaysanin weligiina sujuudin maxaa lagaga soo dhex qaban doonaa ummadaha naarta loo sii wado ya maxaa astaana lagu garan doonaa astaan male calaamad male daalabaa la raacin doona waa sida xadiista nebiga ka muuqata salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxba markayaan warka laynoo dabcinine xaqiiqada jirta waxa weye taariku salaad wax dheef ah iyo wax nasiiba oo diinta islaamka dhexdeeda u yaalla ma jiro hadduu nin yahay iyo hadduu dumar yahay hadduuna ruuxu salaada tukanaynin dumar uu yahay ninka qabaayi waa inuu faraha ka qaado hadday haweenay tahay ninka qabaana wuusan tukanaynin tuka waa inay tidhahdo hadduu tukan waayana waa inay banaanka mariso wax badan baad wadaaddo masaakiina boorsada u tuurtoon kaasoo kale maad boorsada u tuurtaan ya wadaaddo iska masaakiina tukadaa la sheegaya inaad boorsooyinka u tuurtaan bilaahi calaykum kaasoo kale maad boorsada u tuurtaan kaas wey ninka mudan in boorsada loo turo la yidhahdo ama soo tuko ama haddii kaleeto niyo banaanka mar waxaana shaki ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala inuu mid ka khayr badan kuugu bedelayo lanna nabigana wuxuu yhi sal lla alay wasalam man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayra minhu ruuxii shay ilaahay dartii uga taga mid ka khayr badan buu ilahay ugu bedelay subxana wa tacaala
midka khayr badan oo ka wanaagsan ilaahay ugu bedelaya taariku salaad xaas ha u noqonin taariku salaad yuusan kula deganaanin yuusan ku aafaynin khaasatan ninka warka ka muuqday waxa weeye inuu salaadaba inkirsan yahay ninka oranaya xaaskiisii oo tukanaysa iska foorfoorso laga yeeli maayo iska foorfoorso maxay tahay macnaheedu ya salaada ruuxii inkira ama ku jeesjeesa ama sharciga diinta islaamka qodob ka mida ku jeesjeesa isagoo og inay diintu sugtay markaasuu diinta ka baxaya xataa hadduu muslim ah qul abillaah wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kuwanuna kuwa saxaabada nabiga ku jeesjeesa sal lla alay slam saxaabada nabiga wax ka sheegeen waa niman hunguri weyn oo markay cunta timaado waa niman hunguri weyn markuu dagaal yimaadana waa niman fulaya waxba iskama celiyaan yani wax weeye waa niman damaaci badan waxbay saxaabadii ku sheegeen ilaahay subxana wa tacala wuxuu soo dejiyey warme allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaan ma aayadaha ilahay baad ku jeesjeesaysaan oo ku ciyaaraysaan waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeen baa leeyahy salaada ruuxii ku jeesjeesa kii aan tukaninoo banaanka iska maraaba gaal waya la leeyahy ninka salaada ku jeesjeeso iska foorfoorsale gaalnimadiisu banaanka taala isaga xayl ilaahi subxana wa tacala aayadda qur-aanku ku cadeeyey almustahzi biaayaati illahi tabaaraka wa tacala wa bifaraa'idi hada addiin laa shaka fii kufri saas daraaddeed kaasoo kale inuu gabadh muslimadoo tukata uu nin u noqdo oo usoo xarooro ma haboona mana fiicna waa inaad marka isticmaasho awooddaada inta ugu badan si uu u tukado wadaadku waxyaala awood fara badan baa jirta oo aada isticmaashaan wakhtiyada qaarkood ood u baahan tihiin wadaadadana aada kaga adagtihiin awooddaas isticmaal markaad wax ka rabto ama hawl ka rabto awood waxaa jirta yacni aanan anagu haysanin